dagaalkii qaboobay ee dunidu waxa uu Soomaalida ku reebay raad ballaaran oo ilaa maanta saameyntiisu ka muuqato sooyaalka Soomaaliya. 1977kii dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ugu xoog badnaa waxyeeladii dagaalkaasi ku yeeshay Soomaalida. xilliga wax taageera Soomaalidu kama helin caalamka. taa beddelkeeda quwadihii adduunka iyo dawladaha ay xulufaysteen ayaaba isu kaashaday inay jabiyaan awooddii Soomaalida. barnaamijkan waxaanu ku soo xigan doonaa 3 sarkaal oo Raashiyaan ah oo ka warramaya dagaalka iyo qaabkii uu dhacay. saraakiishaasi waxay war siiyeen TV-ga RT ee Raashiya. halka u dambaysana waxaanu idigu maqashin doonaa General Maxamed Cali Samatar oo soo koobaya shaxdii Soomaalidu ay ku gashay dagaalkaas. laakiin ciidankii libaaxi geeska Afrika la baxay bisad baan ka soo saaray. taariikh baan idiin sheegayaa dagaalkii 77 ciidamadeennu kolkay qabri dahare gacanta ku dhigeen Mengistu wuxuu shiriyay dargigiisa wuxuu yidhi ciidamada qabri dahare qabsaday way inaga tayo fiican yihiin marka la fiiriyo 2 arrimood. mid waxa weeye way inaga tababar fiican yihiin talabaadna waxa weeye way inaga qalab fiican yihiin. haddii uu dagaalku 6 bilood oo dambe sii socdo waxaan shaki ku jirin in Addis Ababa laynoogu imanayo oo ciidankaasi inoogu imanayo. waxa keliya aynu kaga fiicannahay waa ciidamada cirku yidhi ciidamo cirnaa dhulma qabsada. waxaan ereygaa u soo qaatay maanta halka aynu joogno ciidamadeennu waa kuwii waagaa jiray. xilligii uu socday dagaalkii qaboobay ee dunida midowga Soofiyeedka iyo Mareykankuba aad bay u daneynayeen mandaqada istiraatiijiga ah ee geeska Afrika. labada dhinac waxay u kala baratamayeen sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen marinbiyoodyada iyo dawladaha curdinka ah ee ka taliya geeska Afrika. Soofiyeedka waxaa walwal gooni ah ku hayay Masar oo gacantooda ka baxday bartamaha 70-aadkii ee qarnigii tegay. Ruushka waxaa fursad weyn u ahayd inuu saldhigyo ka samaysto geeska Afrika si uu xukumo dhaqdhaqaaqyada marinbiyoodka Baabul Mandab. baryaha waxaa khilaaf soo kala dhex galay Itoobiya iyo Soomaaliya iyagoo ku muransan dhulka Ogaadeniya. Ruushku waxa uu isku dayay inuu dhexdhexaadiyo labada dhinac umuurtoodana waxa uu loo xil saaray waddanka Kuuba oo soo saaray qorshe odhanaya maamul wadaag ah oo federaal ah loo sameeyo Soomaaliya iyo Itoobiya ama hala raadsho qorshe kale oo lagu demin karo xaaladdan faraha ka sii baxaysa ee labada dal u dhaxaysay. bishii Juulaay 1977kii waxaa bilaabmay dagaal culus oo labada dhinac ah. Raashiyaanka waxa uu muuqatay in aysan dhexdhexaadin ku guulaysan karin caalamkuna wuxuu u haystay in Itoobiya aan lagu faragelin karin dhulka Ogaadeniya. raashiyaanku waxa uu kolkaa u xagliyay dhinaca Itoobiya. وفي إطار هذه التطورات الانعطافية وصل إلى موسكو الزعيم الإثيوبي منجستو هيلا مريم يطلب دعما عسكريا من موسكو، فوافقت الأخيرة مباشرة على تقديم الدعم العسكري الفوري. Mengistu Haile Mariam isagoo ka faa'iideysanaya xaaladaha isbedbedelaya ayuu u dhoofay Moscow. wuxuu taageero weydiisay midowgii Soofiyeedka oo si dhaqso ah ugu waafaqay inuu taageero ciidan siiyo Itoobiya. Addis Ababa wuxuu Ruushku keenay taageero hub iyo gaadiid leh oo xooggan. wuxuu sidoo kale daadgureeyay 18,000 oo ciidan Kuubaan ah iyo 2,000 oo Yamaniyiin ah oo loogu talagalay inay Soomaalida la dagaalamaan. Soomaalidu iyagoo awoodooda kaashanaya ayay sabaabuleen oo dagaalkii galeen durbana waxay guula ka soo hooyeen safafkii hore ee dagaalka waxayna ku sii siqeen 3 meelood oo hal meel dhulka Itoobiya aaminsanayd inay leedahay.
sida uu sheegay jenaraal maxamed cali samatar ciidanka Soomaalidu xilligaa tiradoodu waxay ahayd 50,000 ilaa 100,000 oo ololihii dagaalka lagu qoray. Maraykanku waxa uu arkay saamayntiisa geeska Afrika inay wiiqantay Ruushkana loo wada gacan galay. Markaas ayuu isagoo adeegsanaya Sacuudi Arabiya oo ay xifil wadaag ahaayeen waxa uu Sacuudiga u soo jeediyay inay taageero lacageed oo dhan 400 milyan ay siiso Soomaaliya. isagoo adeegsanaya hantida khaliijka Maraykanku waxa uu ka shaqaynayay in Ruushka iyo Kuubaankuba ay ku jabaan dagaalka. Sacuudiguna waxa uu ka baqayay in Ruushku uu ku soo laba kacleeyo haddii uu dagaalka guulka la soo baxo. قرر الأمريكيون التأثير على الوضع باستخدام البلدان الحليفة لها في المنطقة، وأصبح على المملكة العربية السعودية دفع فواتير الدعم العسكري الأمريكي للصومال في حربها ضد إثيوبيا. وكانت الولايات المتحدة تراهن على إغراق السوفييت والكوبيين في المستنقع الإثيوبي بأموال خليجية. جنرال ستانستاف مينستيف oo kamid ahaa saraakiishii hogaaminaysay dagaalkii xulafada ayaa sheegay in Itoobiyaanku xilliga aanayba lahayn khibrad dagaal oo xataa aanayba aqoon buuxda u lahayn sidii ay u isticmaali lahaayeen hubkii ay haysteen marka laga reebo 2 batalyan oo hore uga qayb galay dagaalkii Kuuriya. xilligaasna uu Maraykanku tababar dagaalkii qaboobaayay dunidu waxa uu Soomaalida ku reebay raad ballaaran oo ilaa maanta saamayntiisu ka muuqato sooyaalka Soomaaliya. 1977kii dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ugu xoog badnaa waxyeeladii dagaalkaasi ku yeeshay Soomaalida. xilliga wax taageera Soomaalidu kama helin caalamka. ka beddelkeeda quwadihii adduunka iyo dawladaha ay xulufaysteen ayaaba isu kaashaday inay jabiyaan awooddii Soomaalida. barnaamijkan waxaanu ku soo xigan doonaa 3 sarkaal oo Raashiyaan ah oo ka warramaya dagaalka iyo qaabkii uu dhacay. saraakiishaasi waxay war siiyeen TV-ga RT ee Raashiya. halka u dambaysana waxaanu idigu maqashin doonaa Jenaraal Maxamed Cali Samatar oo soo koobaya shaxdii Soomaalidu ay ku gashay dagaalkaas. laakiin ciidankii libaaxi geeska Afrika la baxay bisad baa ka soo saaray. taariikh baan idiin sheegayaa dagaalkii 77 ciidamadeennu kolkay qabri dahare gacanta ku dhigeen Mengistu wuxuu shiriyay dargigiisa wuxuu yidhi ciidamada qabri dahare qabsaday way inaga tayo fiican yihiin marka la fiiriyo 2 arrimood. mid waxa weeye way inaga tababar fiican yihiin talabaadna waxa weeye way inaga qalab fiican yihiin. haddii uu dagaalku 6 bilood oo dambe sii socdo waxaan shaki ku jirin in Addis Ababa laynoogu imanayo oo ciidankaasi inoogu imanayo. waxa keliya aynu kaga fiicannahay waa ciidamada cirku yidhi ciidamo cirnaa dhulma qabsada. waxaan ereygaa u soo qaatay maanta halka aynu joogno ciidamadeennu waa kuwii waagaa jiray. kaas waxba yaanan ku dheeraanin hase yeeshee markaan xuso goobihii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahayd jigjiga oo ciidan xoog leh Itoobiyaanka markaa uu u joogay ciidamadooda taankiga ayaa fadhin jiray. sideedana waxay leedahay jigjiga difaac adag oo dabiici ah buuraaley weeye
markii difaacaas la abaabulo la qodo waay la yaqaanaa sahal laguma mari karo isma ayan lahayn Etoobiyaanka karamardha ayay jiiri karaan Soomaalida oo muddo gaaban ku jiiri karaan isma ayan lahayn dagaalka jigjiga aad buu runtii waa ka qallafsanaa daan xusuustayda dib ugu noqdo 14 casho ayuu nagu qaaday jigjiga inaan ka takhalusno jigjiga waa dhaafnay waa la wada ogyahay harar markaan marayno ayaa ay noqotay inaan ka soo noqdo oo ciidamo kale iyo awood naga badan ay soo gashay meesha dagaalkii qaboobaayay dunidu waxa uu Soomaalida ku reebay raad ballaadhan oo ilaa maanta saameyntiisu ka muuqato sooyaalka Soomaaliya 1977kii dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ugu xoog badnaa waxyeeladii dagaalkaasi ku yeeshay Soomaalida xilliga wax taageeraha Soomaalidu kama helin caalamka ka beddelkeeda quwadihii adduunka iyo dawladaha ay xulufaysteen ayaaba isu kaashaday inay jabiyaan awooddii Soomaalida barnaamijkan waxaanu ku soo xigan doonaa 3 sarkaal oo Raashiyaan ah oo ka warramaya dagaalka iyo qaabkii uu dhacay saraakiishaasi waxay war siiyeen TV-ga RT ee Russia halka u dambeysana waxaanu idigu maqashin doonaa General Maxamed Cali Samatar oo soo koobaya shaxdii Soomaalidu ay ku gashay dagaalkaas laakiin ciidankii libaaxi geeska dagaalkii qaboobaayay dunidu waxa uu Soomaalida ku reebay raad ballaadhan oo ilaa maanta saameyntiisu ka muuqato sooyaalka Soomaaliya 1977kii dagaalkii dhex maray Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ugu xoog badnaa waxyeeladii dagaalkaasi ku yeeshay Soomaalida xilliga wax taageeraha Soomaalidu kama helin caalamka ka beddelkeeda quwadihii adduunka iyo dawladaha ay xulufaysteen ayaaba isu kaashaday inay jabiyaan awooddii Soomaalida barnaamijkan waxaanu ku soo xigan doonaa 3 sarkaal oo Raashiyaan ah oo ka warramaya dagaalka iyo qaabkii uu dhacay saraakiishaasi waxay war siiyeen TV-ga RT ee Russia halka u dambeysana waxaanu idigu maqashin doonaa General Maxamed Cali Samatar oo soo koobaya shaxdii Soomaalidu ay ku gashay dagaalkaas laakiin ciidankii libaaxi geeska Afrika la baxay bisad baa ka soo saaray taariikh baan idiin sheegayaa dagaalkii 77 ciidamadeennu kolkay qabri dahare gacanta ku dhigeen Mengistu wuxuu shiriyey dargigiisa wuxuu yidhi ciidamada qabri dahare qabsaday way inaga tayo fiican yihiin marka la fiiriyo 2 arrimood mid waxa weeye way inaga tababar fiican yihiin talabaadna waxa weeye way inaga qalab fiican yihiin haddii uu dagaalku 6 bilood oo dambe sii socdo waxaan shaki ku jirin in Addis Ababa laynoogu imanayo oo ciidankaasi inoogu imanayo waxa keliya aynu kaga fiicannahay waa ciidamada cirkuu yidhi ciidamo cirnaa dhulma qabsada waxaan ereygaa u soo qaatay maanta halka aynu joogno ciidamadeennu waa kuwii waagaa jiray